maxaa adigu nin dambe lagaga daba keenay magaaladan waanad keliga ka taliso wadaadkii buu xastay ilaahay amarkii qaadigii qurashiga ah ee cali ibn musira baa in laga qabtay nin dhakhtar u tagay dhakhtarkii baa daaweynaya ku laabtay wadaadkii qaadiga ah ee dambe la soo magacaabay kii kale ee horaan qaadiga sii ahaa yaa dhakhtarkii u tagay wuxuu intaas lacag aan ku siin hayaaye wadaadkan markuu ku yimaado isha waxaad kaga shubtaa sun disha indhihiisa ardayda sheekhu waxay yidhaahdeen sheekh wuxuu naga tegay asagoo indho qaba wuxuu noo soo noqday asagoo indho la'aan oo hamagsanaya bacda caamayn kuufa ku soo laabtay dam qaadigu horaad dilay muxuu ku sameeyey wuxuu la heshiiyey dhakhtarkii xoogoo shilimuu siiyey wuxuu ninkan indhaha ka hagaaji hee indhaha tir daawa wadaadka indhaha lagaga shubay waa lagu kala tegay xasad baa keenay meeshan adun baa ka noqon sheekh cid kale sheekh kama noqon karto waa aafo meesha adaa ganacsi ka noqonay cid kale lama ogolo meesha adaa siyaasi ka noqon aafada ummadda baabisa sumco iyo magac ummadda eber buu ka dhigaa xasad baana asal u ah iska ilaaliya وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والحسد مسلمين حسد اسكجرا والحسد اسك الالي حاسد نمو فان الحسد صادر بعد سلوح رجلين بني ادم كادونك كنول نينك اوغو نول خن هدي كور عذابا ان سنين وحاسدك هرد في عن مهله ما انت دوا عذابا ياي اوركاسو اسك cunahaya isaga ismiranaya ma nasanayo sida ninka laga sheegay laba goor baan yaan ugu naxdin badnahay baa laga sheegay mid Soomaalida imtixaana markan Allah maqlo hee on leeyahay Allah iskaasi hebel baa gabadh keenay ama Allah san maqlo hebel baa wiil u dhashay labada habeen ma seexdo halkaas ay baashu la gaadhay ma nasanaya aafa haysata إياكم والحسد فإن الحسد حاسد نمدو يأكل الحسنات حسنات كالله تمدبو عنها يا حاسد نمد عنيس كما تأكل النار سي النار تعنت الحطب حابض يقريها أو قال من النبي وحول العشب عوسك يضريمضة رواه أبو داود النبي وحول عليه الصلاة والسلام حسد كإسك إلى وعذر حنه محايا حسنات كنبو بابئين يا sida dabku iyo naartu iyo oolku xaabada ama cawska uu baabaasho xasadku waa dhib badan yahay ummad badan buu baabi'iyay xasanaadka muxuu cunaya waa niga la xadiidka soo socdo tusahaya xaasidku inuusan muslim ba ahayn xasanaadka maxaa hoobiyo daadiya diintina waxay ogtihiin xasanaadka muslimiinta waxa hoobiyo daadsho waa hal dambi kaliya waa dambigee وكفر يقالنمو ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ما يشغل محل الله شيء حاسد تكون حسنات كلهم بابيني ولا ذاك فهمي حاسس كربطة معني أن صوش شيء فوش حما أمن زينوس المسلم هاي ولا ذات المام حاسدك هو مسلم فاسق وصاحب كبيره لكن حسنات كسبان لا أقبلين بيكون سنة ودادنا معناه صار في عين حاسد عمل ما أقبله إسكا إلالية بباطبنا بوكينية ضد بلان بإنها تري حسدك وذات قاضي ولو نجري علي بن مسر القرشي وريكو فأها ونعقيمة بضنها عالمنا أهود قرنا يزون كتبتكم مرتين صحيحان رجال شو ذا كمية خاصة مسلم ayaa qaadi loo diray meel Armenia loo rajay meesha hadda isku haysteen Azerbaijan iyo isku haysteen ay sheegay dawladdan Kristanka Armeniyaanka dhulkaas uu qaaday ilaa anaga ka talin jiray hadda baan aragtay inaan meelahan rafanayne almuhim qaadi baa waa la magacaabay qaadi hore Armenia ka talinhayo qaadi ka ah qaadiga baa xoog xasad baa galay wuxuu yiri adoo meesha qaadi ka ah maxaa adigu nin dambe lagaga daba keenay magaaladan waanad kaliya ka taliso wadaadkii buu xastay ilaahay amarkii qaadigii qurashiga ah ee cali ibn musira baa in laga qabtay nin dhakhtar u tagay dhakhtarkii baa daaweynaya ku laabtay wadaadkii qaadiga ah ee dambe la soo magacaabay kii kale ee horaan qaadiga sii ahaa yaa dhakhtarkii u tagay wuxuu intaas lacag aan ku siin hayay
wadaadkan markuu ku yimaado isha waxaad kaga shubtaa sundisha indhihiisa ardada sheekhu waxay yiraahdeen sheekhu wuxuu naga tagaa soo indha qaba wuxuu noo soo noqday asagoo indha la'aan oo hamagsanaya bacda caamayn kuufu ku soo laabtay dam qaadigu horaad dilay muxuu ku sameeyey wuxuu la heshiiyey dhakhtarkii xoogoo shilimuu siiyey wuxuu ninkan indhaha ka hagaaji hee indhaha tir daawa wadaadka indhaha lagaga shubay waa lagu kala tagay xasad baa keenay meeshan adun baa ka noqon sheekh cid kale sheekh kama noqon karto waa aafo meesha adaa ganacsi ka noqonay cid kale lama ogolo meesha adaa siyaasi ka noqon aafada ummadda baabisa sumca iyo magac ummadda eber buu ka dhigaa xasad baana asal u ah iska ilaaliya ibnu ciib wuxuu ka sheekeeyey ninkii imaamka iyo caalimka ee ardaygii wax ka warin jiray ahaa cabdullaahi mubaarak cali ibnu xusein ibnu shaqiiq almarwasi khuraasaan dhulkaasuu ka yimid baqdaad buu yimid markuu baqdaad soo aadahay iyo qolyihii reer khuraasaan kitaab bayba qoreenba ay leeyihiin ninkaasi ibnu shaqiiq ah waa murji iska ilaaliya waa murji ma arday cabdullahi mubaarak wax baray oo khaasadiisii baa murji noqonay nin cilmi badan oo aqoon badan oo cabdullahi mubaarak ka xigsaday buu ahaa wadaaddaa xastay waraaq bay ku soo joogjoogsadeen axmed ibn xambal iyo yaxn maciin iyo culimmadii baqdaad fadhiya aad looga dambeeyey xadiidka ayay u soo direen waraaqay wadaadku wax kaga sheegahayaan oo waa murji mubtadica oo jaada hayaan ibnu ciib wuxuu maalinka damban xalqa fadhi u qabanay waxaan idhi ibnu shaqiiqow waxaa la sheegay inaad murji tahay yaa sheegay waraaq baan kitaab dhan baan haynaa waa kan aad tamaysa wuxuu idhi idinku maxaad aaminsan tihiin waad taqaanaan maxaad idinku qabtaan waxay yidhahdeen warkaasaad naloo soo qoray maxaan samaynaa way imtixaaneen masaa'ilka murjida oo dhan wuu khilaafay sida ahlu sunnuhu ku jawaabay markay ogaadeen nin caqiide fiican inuu yahay yay dhaheen nacafi bay dhaheen sheekhu waan khaldannay wadaadii baa dhici weligii nacafin ma ilaa qiyaam saaca annaga nacafin mahaya buuri nimanka xusaadda ah warkood wadaad ii qabatee ood imtixaan ila istaagteen iyo qadaadur iyo warsanka gelin annaga nacafin mahayo muddaan daba taagna masuu noo cafiyo war sheekhu nacaf xasadku wax badan buu sameeyaa reero dhan buu dumiyaa ummaduu dumiyaa iska ilaaliya waxa allah qaybiya wuxuu alla ku siiyey ku qanac haddii xoogooda adkaysan weydana ilaahu hebel waxaad saisii dheh iyo wax ka fiicanba alla gacan weyn baad hoos joogtahay intaad wadaadkan ku wareegaysanayso ilaahay bari ma alla lagaa xigaa ibliis baa intuu bariya laga aqbalay